xaaladda uu geliyo dhig ka saari kara maaha miirsanayo ilaa uu xaaladda Soomaaliland gaadho heer ay noqoto walba halka doonto ka tasho halkan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay Bina Live News idil ahaantiiba ku soo dhawaada warka maanta waxa warkaas idin soo tubinaya anigu Cabdi Ali Gure oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ka diiriyay xaaladda mustaqbal ee dalka Soomaaliland soo wajahay iyo maamulka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hadaba isaga oo ka hadlaya arinta mustaqbalka Soomaaliland ayaa wacdaladiisa kamid ah sidan xaaladda uu geliyo dhig ka saari kara maaha mana miirsanayo ilaa uu xaaladda Soomaaliland gaadho heer ay noqoto walba halka doonto ka tasho Mujaahid Ali Gure ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xariga mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee la xirxiray mudaharaadkii dhawaan ka dhacay Hargeysa isagoo eedahaasi dusha ka saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa hadaladiisa ku bilaabay wali waanu ka dhergin xarigii qoladan xirxiran oo ay ilaa gaadho heer madaxweyne Muuse Biixi lagu soo rogo xayiraad xagga dhaqdhaqaaqa socodka oo aanu ka dhoofi karin Soomaaliland uu gaadhaysaa mustaqbalka iga qoraniga sidan u socdo halkaas ay gaadhaysaa isaga iyo rag kale xaaladda siyaasadda ee Soomaaliland guud ahaanba runtii ma qurux badna waliba waxay gashay mugdigan intay ku jirayso lama garan karo mugdiga siyaasadeedna runtii bulshada uu kala furfurayaa dadku way iska horkeenayaa mustaqbalka Soomaaliland ayaaba xataa halis ku jira in uu galo mugdigaasi meel xun gaarsiiyo bilaha soo socda anigu badan ma ka hadlay mana jeceli inaan ku celceliyo dhawaan ay ahayd markii ay isxilqaameen salaadiin ku dhaqan Soomaaliland ee goboladeeda kala duwan hadaba Ali Gure oo arintaas siyaasiyiinta isxilqaamay iyo arinta gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa uu ku bilaabay sidan ama salaadiin ha gasho ama guurti ha gashay yaa la dhexdhexaadinaya hadday tahay musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxweynaha saddexda xisbi oo Muuse Biixi iyo Cirre iyo Faysal iyo hadday tahay qoladan mucaaridka iyo madaxweynaha siday u badan tahayba oo labada xisbi ee mucaaridka iyo madaxweynaha hortaysaya kulmiye iyo mucaaridna isma hayo xukuumad iyo mucaaridna isma hayaan waxa weeye Muuse Biixi unbay Muuse ma ahanin aan isleeyahay oo Soomaaliland xaaladda uu geliyo dhig ka saari kara maaha mana miirsanayo ilaa uu xaaladda Soomaaliland gaadho heer ay noqoto walba halka doonto ka tasho roon reerka u hadho taasoo markaa isagu uu rumaysan yahay dabcan inuu yahay ka awood ugu badan oo laga yaabo inuu soo xidhiidho madaxda معارض وهذا بقى يقارح الحريه صوبته حرينا أي تهاي مظاهرات كسلمي جاها كو حرينا أيهين دبناياشي كو ذي صناياشا هانا أي دمرق تنكا يتجوجها مدحوينها أي كنت مشلين يعني ترج وذا لايه iyagu haddana waliba laga yaabo inay ku heleen magac odayaashan wax dhexdhexaadinaya horta labada dhinac ay dhexdhexaadinayaan midna ma dalban mucaaridkuna ma dalban oo dhexdhexaadiya ma oran madaxweynuhuna isagu erge iyo cid dhexdhexaadisa iyo xataa guurtidan waa afka une si runa niman u gelaya khilaafkan oo si cadaalada u garsooraya inaanay ahayn waa la iska garanaya marka mucaaridku waxa uu tagay odayaasha waxay ka codsadeen inay hakiyaan mudaharaadadii salmiga ahaa ee ay wadeen waana ka aqbaleen waxa la filayay
in odayaashu dee ay arkaan ilaa cidda qori wax ku xidhay waa madaxweynaha oo ay kala hadlaan bal horta wixii kala had dambeeye dadkan la xidhxidha ee aan dunuub ay galeen jirin inuu soo daayo marka ta uu ka hadlayaa hadda uu ka warwareegaya madaxweynuhu wax kale maaha waxa weeye weli waanu ka dhergin xadhiggii qoladan xidhxidhan cali gurey oo la weydiiyey haddaba su'aal ahayd cidda keliya ee arrintan imika socota iyo xaaladdan cakiran ee cirka isku sii shareeraysa dhinac walba ha ahaatee ayaa waxa uu cali gurey hadalkiisa ku yidhi adeer kubaddu waxay la taallaa madaxweynaha waa mas-uulka koowaad ee qaranka laakiin hadda ma moodid inuu mas-uul koowaad oo qaran yahay ee waxaad mooddaa inuu koox yaroo isaga hoos gabagabalaysa oo kala soo hadhay dadkii iyo in isaga dee u sacbiso oo taageersan xalaaliya wixii kale subaxaa maanta ah madaxweyneba ma lahaan qaba anugu waayo de isagii baa diiday inuu madaxweyne u wada noqdo hadduu diiday inuu madaxweyne u wada noqdo oo kana tiisa eego kana tiisa eego kana tiisa eego dee dabcan waa bilaa madaxweyne markaa dadka intii kale intaa isaga uu socday mooyaane marka isagiina kambaskiibaa u go'anoo bahalkan kambaskii waqooyiguunbuu sheega oo lagu helaa hadduu kambaska kaa go'o kolla koonfur buu waqooyi kugu sheegayaa kolla galbeed buu waqooyi u jahaynayaa waa hagaaga daawadayaal halkaad warkaasi kala socoteen waa bino live news bartaan ku leenahay youtube warkaasi idin diyaariyey cabdisamed yuusuf tan iyo intan mar kale hawada ku kulmayna nabadgelyo